markale saaka William Samafale Nuux Cumar Kadiye waxa uu deeq lacageed gaarsiiyay qoyskii danta yar ay xaaladooda caafimaadna ay ahayd tii aad horay u ogeydeen isla markaana haystay saddexda wiil oo laba kamid ah yihiin kuwa madaxa ka jiran halka uu ka saddexaadna yahay wiil dhalinyaro ah oo waayay indhihii wax ku arki lahaa deeqda uu saaka gaarsiiyay William Nuux Cumar Kadiye ayaa ahayd mid ka timid walaalo muxsiniin ah oo ku dhaqan dalka dibadiisa inkastoo tagista Nuux Cumar Kadiye gurigaasi ay tahay markii saddexaad oo laba kamid ah uu gaarsiiyay deeq lacageed halka marka saddexaadna ay ahayd markii ugu horeysay uu wax ka ogaanayay soona bandhigay xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskani danta yar haystana saddexda dhalinyarada ay xaaladoodu tahay tan idin muuqata baahida qoyskani ayaa ah mid sii kala liidata hase ahaatee ta ugu daran ee maanta loo baahan yahay ayaa ah in laga rarayo halka ay degan yihiin oo ahayd jaga ayna iyagu lahayn loona baahan yahay in loo helo dhul ay iyagu leeyihiin ugu horeyn waxa isagu halkaasi ka hadlay Samafale William Nuux Cumar Kadiye kana waramay halka ay wax marayaan iyo sida ay wax socdaan maantana waxaan qoyskan aanu account ugu shubnay oo account gaar ah u diyaara $500 Mareykanka oo siyaabo kala duwan loo soo gaaray oo ay soo direen walaalaha muxsiniina oo dalka dibadiisa ku dhaqan 500 horena waa tii noo sii taalay oo dhawaantan aan soo gudbinay wali hawshu way socotaa ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro walaalayaal in la isku naxariisto oo dadka dan yartaa loo naxo oo yaani la garab istaagay diinteena ayana faraysa insha Allah taala ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro hawshu way socotaa barikama qodna dadaal baan wadnaa waan dadaalina cid kasta oo maanta haday gobolka awdal ka soo jeedo haday Soomaalida kala tahay maanta dadaal kuma yara oo waa ka gacmaha la soo qabsanaya insha Allah taala biidnillah kareem ilaahay subhanahu wa ta'ala han la garab galo qoyskana insha Allah taala waxaan u rajaynaynaa in dhul ay iyagu leeyihiin hooy ay iyagu leeyihiin oo la oran doonin ka kaca ka guura inaan u sameyn doono biidnillah kareem isaguna dhankiisa waxa ka hadlay mid kamid ah dadka la jaarka ah lana socda xaaladda guud ay ku sugan yihiin qoyskani irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa rasuulkeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi نبي الرحمة ونحريسته إلهي سبحانه وتعالى كما قعابي عالم كودنا إلهي وقلنا نحريستي أي إن شاء الله تعالى إنه دارمين إنه يسكن نحريسنه سيدا إنه وضع أركيننا إن شاء الله تعالى أرنتني وأرنتها مرقله وأنك أنت دائي علمي بلا نقولتهم إن شاء الله تعالى إنه كما ركعينه وح سكر اللوردي كرو أمبا لما ليسن كرو أمبا شكي قالي كرنا إن شاء الله تعالى معها marka cid kasto insha Allah ta'ala khayrka jecel oo islaamnimada jecel waxna qaban karta insha Allah ta'ala qoyska saddexda inaba ay ka xanuunsanayaan insha Allah ta'ala xagga dhimirka iyo xagga lixaadka insha Allah ta'ala in walaalahooda muslimiintu ay u soo gargaaraan iminkana waxa ugu daran halka yar ee ay markii hore loo yeeyay oo walaalaha ay u yeebeen yaa iminka dhulkii loo baahday oo insha Allah ta'ala ay meel ay cagta dhigaan ayna haynin marka insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan joogo yar aanu iibino oo de wixii ay kolba haystaan insha Allah ta'ala aanu ugu yeegleelo halka insha Allah ta'ala aanu dejino marka ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay noo fudaydiyo qof kasto arinta ka qayb qaatana ilaahay waxaan u baryaynaa dambi dhaaf iyo naxariis iyo jannada firdawsa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo waalidkiisa haday dhinteen iyo haday noolihiin naxariis iyo xanaano ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu bedelo kan waa mid kamid ah saddexda wiil waana inaan dhalinyaro ah waayeen indhihii wax ku arki lahaa waana ka ugu dhow marka dhinac laga eego ay maskaxdiisu caadiga tahay wuxuu walaalaha muxsiniinta uga mahadnaqayaa kaalmada ay soo gaarsiiyeen wuxuuna ka dalbanayaa kuwa kale bismillaahir rahmaanir rahiim horta ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ugu mahad celinaynaa in deeqdii ay noo soo direen soo gaadhay wali ayna firna ka qodnay inta kale hadhayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay noo soo dhameystiraan meel kasta jooga ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ajarna ilaahay ka siiyo maanta yoom la yanfacu maal wala banun maanta ilaahay yidina ilaahay kuwa miisaankooda cuslaaday jannatul firdaws kalena allah ka yeelo aamin hooyadani waa hooyada dhashay saddexda wiil ee horay idinku soo sheegay ku darso waa hooyada ah waxay iyaduna ka mahadnaqaysaa deeqdani la soo gaarsiiyay waxayna baaqu diraysaa dhammaan ummadda muxsiniinta ah ee ku dhaqan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaad noo soo dirtay wayna soo gaadhay 500 oo kale ayna soo gaadhay iyo intii hore aad bay noo soo gaadhay wali farna kama qodno
waxaan ka codsanayaa dad aad iyo aad u liita baan nahay shaashadaba waynakaa ka arkay dad iska dhibaataysan baan nahay carruurtu waa agoon dee waynakaana arkaya waa dadaasheen ilaahay miisaanka xasanaadka hayneegu dar allah haynee laban laabo allahana aynagu anfaco halkaad ka soo bixiseen ilaahay janno firdaysa allah hayneegu dar waxaan u mahad celinayaa inaan wariyaha nuux kadiye ee intaa noo qamaqaabiyey ilaahay isagana ha ka ajarseeyo ee nagu soo noqonaya maanta la 3 jeer buu nagu soo noqon ilaahay buu lamin laabka ilaahay isna ha ka ajarseeyo inankana waanu mahad celinayaa ilaahay ha u laban laaba ajarka ilaahay waxtan ha siiyo isku soo wada duubo wali fari kama qodna baahidii qoyskani waxaana laga rabaa walaal kasta oo jecel ka qayb qaadashada u gargaaridda iyo samafalka u gargaarista qoyskani danta yar jaamac xuseen jaamac dude magaalada Buuran